allow adigaan ku aaminayo. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد وريال وحربها الكان إن إذنكم سجل إن شاء الله قصة عجيبة. قصة وحاك شكين يويل أيك بعضي وهنا كوبلا ويسيدان wuxuu yiri waxaan ahaa mid aanan tukan salaada sigaarka afuufa xumaha isaga dhex jira ma aanan dareensanayn dambi toobadna haba sheegin waxaan ku farxi jiray inaan ahay muslim naxariista rabbigayna ay weyn tahay laakiin waxaan ilowsanaa in ciqaabtiisu ay daran tahay qabashadiisuna aanan laga baxsan karin weligay masjidka maan gelin inkastoo uu masjidku ii dhowaa xilli walba waxaan maqli jiray aadaanka salaadaha laakiin maan ajiibin weligay bisha ramadaan markay soo gasha waa bisha kaliya ee aan tukan jiray waana soomi jiray ma garanayo sababta bishaas baan caabudi jiray sidaas oo ay tahay xitaa bishaasi ma geli jirin masjidka habeenkii waxaan u tagi jiray si aan saaxiibadayda ula soo dhafro ama ula soo caweeyo xilliyada qaarna galab hore baan bixi jiray oo aan magaalada geli jiray kama aanan fikiri jirin guur caruur mustaqbal midna inkasta oo aan wax ku darsaday da'daydii 35 markaan gurigayga ka soo baxayo ayaa waxaan wadada hortayda ku arki jiray gabar ayada dhan wada xijaaban oo masjidka inoo dhow galaysa waxaan iska dhaadhicin jiray sidii aan gabadhaas kula hadli lahaa oo aan gurigayga ku keensan lahaa naftayda xumaan ayay ii qurxinaysaa shaydaana bini'aadamka wuu dhagraa ima muuqato waxaas oo idil haybadda iyo sharafta ka muuqata gabadha markay socoto waxaad moodaa in wadada ka baxla yiri darbiga ayay isku dhajin jirtay inta badan waxaan arki jiray ayada u socdo salaada casarka waxaan go'aansaday maalin inaan la hadlo laakiin ima jawaabto dhowr galab haddii aan sidaas u bartilmaameedsan jiray bay dhibsatay galabtii dambe ayay go'aansatay inay ila hadasho meel aan albaabka guriga ka fogeyn bay maraysay markaas bay igu tiri maxaad iga doonaysaa walaal waxaan ku iri waxbo soo dhaaf gurigayga soo gal waa keligay oo qura cidna ma joogto marka aan hadalka iyo kaftanka ku badiyey oo ay u jeedo inaan nahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fog inaysan canaanan mana aysan igu xanaaqin balse waxay iigu xirtay shuruud inay gurigayga soo gasho waxay igu tiri gurigaaga waan soo geli doonaa weliba sariirtaada waan ku fariisan doonaa haddaad ka soo baxdo shuruudahan intaan farxay ayaan ku dhahay maxay tahay shuruudaha wallaahi waan ka soo bixi doonaaye waxay tiri 40 cisho ama 40 maalin waa inaad masjidka ku tukataa salaadaha oo aad casarkii iyo subaxa kadib aad dhagaysataa duruusta masjidka insha allah kadib anna waan ku fulin doonaa ballantii waxaan ku idhaahaye waan yeeli doonaa sidaas ayaana ku balannay kadibna way baxday halkii baan hawshii ka bilaabay aniguna anoo fulinaya ballantii laakiin 2 asbuuc gudahooda anigii dhan waan isbedelay waxaan is arkay anigoo oynaya mar walba markii aan ogaaday halka aan ku socday iyo baadida ay haysatay markasta waan ka shalaayaa inaan ilowsanaa hadalkii nabigeena suubanaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee ahaa annaga muslimiinta ah iyo ayaga gaalada ah xariga inoo dhaxeeya waa salaada kii ka tagaana waa gaal toobad nasuuxa ayaan toobad keenay
waxaan intaa kadib noqday qof ka qoomameeya falkii uu samayn jiray, waxaana noqday qof masjidka ku xiran oo salaad kasta safka hore taagan. waxaan helay raaxo iyo iimaan inkastoo aan oon jiray markastoo aan soo xasuusto falalkaygii xumaa. subaxii ee 40 cisho ka soo wareegtay ayay ii timid gabadhii. salaanta islaamka kadib waxay igu tiri, haye ma kuu fulayaa ballantaadii? waxaan ku dhahay, macaadallah walaashaydiyey, aad baan uga shallaaya hadalkii aan ku dhahay. dhanka kalena waxaan ku farxaa inaad hanuunkayga sabab u noqotay. orod iska laabo, allah subxaanahu watacaala ha ku xifdiye. waxay igu tiri, walaalkaygiyow, waxaan ku kalsoonaa rabbigay inaanan u dullayn doonin. in badan ayaan u haweynaa inuu ducadayda aqbali doono oo uu ku hanuunin doono, kana masixi doono laabtaada wixii ku jiray. mahad waxaa iska leh allihii subxaanahu watacaala ajiibay baryadayda. allihii ajiibay baryada addoontiisa ee dhowray addoontiisa iyadoo ilmeynaysa ayay sidaas tiri. aniguna intaan madaxa fooriyey ayaan la ilmeeyey. muddo yar gabadhii markay aragtay wanaagayga iyo sida aan mar walba masjidka ugu xiranahay, way la soo xiriirtay, waxayna iisoo bandhigtay guur. kaalmada allah darteedna wuunoo fududaaday guurkaas. waxayna noqotay xaaskayga aan jeclahay, waxayna noqotay gabadhii sababta u noqotay hanuunkayga. walaalayaal, ruuxii ilaahay subxaanahu watacaala hanuun la doono meel sahlan ayuu ka tusaa xaqa. allah subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwa uu hanuunkiisa la doonay una carara xaggiisa xilli walba. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.